السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوينك لا أخرستو مركي صلاة لوجو جرو أنت لا سلام نقصن. السلام عليكم السلام عليكم أنت دحين التحيات مركي دميسد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عد دميسد دعوينك لا أخريا أيا وحى كميت دعو النبي صلى الله عليه وسلم كسكناتي صارن بخاري مسلم إمام أحمد ترمذي نسائي أبو بكر رضي الله عنه أيا النبي صلى الله عليه وسلم وحكى صدي inuu duco uu baro intuu salaada ku jiro markaas wuxuu u sheegay duco qiimo badan ducadu waxay tahay allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ودعاء قيمة بدن ربي عز وجل ويدي سنيس إنه أقيريسد إنها دنبك شيء أو دنبك كرافو دنبك أكون هذا إنه ربي عز وجل أكون دافو أبو بكر رضي الله عنه آية البغية دعاء أبو بكر أن أقنع إيمان كيسا sidoo kale aan ognahay Abu Bakr radiyallahu anhu iimaankiisa soo nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis inoo sheegay iimaanka Abu Bakr ka fatadii la saaro yani miisaan dhinac kale laga saaro iimaanka ummadoo dhan waxa cuslaanaya oo kor noqonaya iimaanka Abu Bakr radiyallahu anhu saasay tahay waxa la barayaa ducada qiimaha badan qofku waxa fiican mar waliba inuu Rabbi azza wa jalla inuu u qirto inuu nafsadiisa dulmiyay Rabbi azza wa jalla yani yani inuu ka dalbado toobadkeen ama damdaaf inuu ka dalbado rabbi azza wa jalla marba u toobad keeno ayaa fiican qofka waqtiga salaadan ku jiro oo qofka ku jiro waa muhiim inuu yani qofka ducooyinka uu badiyo waxa uu dhow yahay ducada in yani laga aqbalo waliba qaasatan inta la salaam naqsan ducooyinku waa mustajaaba marka waxa fiican qofka inuu qirto dambigiisa mar walba soo rabbi azza wa jalla dambigiisa uu dhaafo waqtigaasna waa muhiim saa sheegnay ducadan waxa la qariyaa inta la salaam naqsan aan ku dadaalno baakum la